بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa ku tuso sida ugu fudud application aad u soo gashan kartid right click marka mouse la siiyo sida hadda waxa igu jira meeshan ku qoran tahay software notepad markaas aad click aad u siiyo waxa laga soo gooday soo baxay notepad marka hadaba si aan mid kale ugu soo darsan kara halkan meesha hadba inta aad jeceshahay soo gashan kartaa marka waxa raacay talaabooyinkan oo horeen start menu ta qorta edit marka qortid waxaan click marka ku soo baxay hayso waxa yes marka dooratid حتى ماشي قلت HK classes root هذا فور هذا مركز كرتين password لا جالسين فقرته directory من فقرته directory بابارنا directory واحد directory وطورسة قدمنا صفر رسالة مركز صفر تبادل حاجة صفر رسالة من فقرته background مركز كرتين waxaad si fursadda kala qoronta shell marka furtid hadda da fiirsi meeshan waa meeshii markii lagu qoray software notepad oo meeshaas aan ku sameeyay halka ka arkay software notepad nagu soo baxay marka anigu baarana mid kale ku daro waxaad u tagayaa shell marka aad u tago waxaad siinayaa right click markaas waxaad dooranaysaa new kadib xaliyaa key marka dhaxal waxa soo meesha la baxay application kay weeyaan waxa ku qoran inuu Sublime application kaas oo meesha soo daro Sublime kadib xaliyaa enter Sublime marka qoro right click si siinaya dara right click markaas hadana new kadib xaliyaa keygaas waxa mastina ku qortay masti waxa command kana gelisan qorta command marka qortay enter kadibna command-ga saauta markuu ku soo dhankan aad command-da dhex jooga click si dhankan soo fiiri double click si double click markaas siisi waxa ku soo shubtaa path-ka meesha computer-ka yaalo application-kaaga hadda marka soo baarina waxa tagayaa computer-ka soo furaya sida kaliya kadib xagsi kaliya program files application-ka meesha yaalo Sublime kana kadib xaliyaa Sublime text application-ka waa mid kan markaan soo qaado isaga dultiga kadib xaliyaa shift oo taabaya shift marka taabto waxa sameeyay right click kadib waxa dooranaya copy as path mid qoranta copy as path okay markaan taabto kama saxriya kiiba ku laabanaya halkan waxa ku leeyahay paste right click paste marka ku paste okay marka dhawaad application-ka waxna uu soo galay si dhanka right click-ga baan tijaabino bil shaqeynayeen kale marka right click soo siiyo waxa soo baxay mid ka hor Sublime waxaan soo galay Sublime furo application waxa uu soo koobmar okay application Sublime-ka uu soo furmay hadba marka programada baahanta dhan halkan soo gashan kartaa meesha intaas ugu soo dhawaysanaysa waana habka ugu fudud waxaan rajeynayaa inaad ka soo noqdo mid useful